Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan akhyaarta ku xiran channelkeena Kobciye. Maanta barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadan doonaa astaamaha guusha lagu gaadho. Dadka guulaystay waxay leeyihiin dhaqamo iyo caadooyin kuwaas oo ka caawiya inay horumar gaadhaan. Maanta waxaynu soo qaadan doonaa qaar ka mid ah qodobadaasi. Qodobka koowaad, kalsooni. Kalsoonidu waxa weeyaan inaad naftaada u aragto mid wax soo kordhin karta, guulna gaari karta. Marka naftaada ku kalsoon tahay ayuunbaad higsan kartaa wax rabtid. Kalsooniduna waa furaha guusha. Mid ka mid ah mufakkiriintii hore ayaa waxa uu yidhi, hal mid oo muhiim ah guushu waa kalsoonida. Hal mid oo muhiim ah kalsooniduna waa diyaargarowga. Qodobka labaadna waxa uu noqon doonaa aqoonta. Aqoontu waa furaha guusha, waana mid ka mid ah astaamaha guusha lagu gaadho. Aqoontu waa iftiinka nolosha, waana miisaanka lagu kala sooco guusha iyo guuldarrada, samaanta iyo xumaanta. Murti Soomaaliyeed ayaa waxay tidhi, aqoon la'aan waa iftiin la'aan. 3. Daacadnimo. Daacadnimadu waa astaan ay leeyihiin dadka guulaystay, waxaanay daacad u yihiin naftooda, dalkooda, mana khiyaamaan cidnaba. Waxaanay ogsoon yihiin in dadka wax khiyaama aysan guulaysan. 4. Dhaqan wanaag. Haddii aad doonayso inaad guulaysatid, waa inaad dadka ula dhaqantaa si wanaagsan, kana fogaataa in dadka aad kula dhaqantid waxyaabo xunxun. Dhaqan wanaag waxa uu kaa dhigayaa mid bulshada uu la noolyahay ay ixtiraamaan. Anshaxu waa bridge-ka u dhexeeya yoolka iyo guusha. Sidaasi waxaa yidhi Rohan. Waxaanu jeclaan lahaa inaad like noo saartid haddii aad subscribe aadna saarin. Waxaan jeclaan lahaa inaad hadda saartid. Fadlan ku xidhnow barnaamijyada soo socda, waanaad ku mahadsantahay sida fiican ee aad noo dhegaysatay.